insha allah tacaala maanta waxaynu ka hadlaynaa aragti ku saabsan cryptocurrency-ga iyo niyuusadii ugu muhiimsanaa wararka runtii mar dhaweyd bay soo baxeen taariikhda videogan duubayna waxa weye maanta 21 oo January 21 marka haddaynu insha allah tacaala dul istaagno niyuusyada kuwooda ugu muhiimsan waxaynu arkaynaa amba uu sheegayaa Trump administration says banks will go all in on crypto after market structure. newskan wuxuu ku saabsan yahay in la bilaabi doono sharciyeynta cryptocurrency-ga taasoo dabcan ay sugayaan in laga soo dhameeyo congresska. marka waa news runtii aad iyo aad u wanaagsan. haddaynu isla eegno newska kale, Trump wuxuu joogay maanta World Forum economiga waxaanu sheegay in uu ka shaqaynayo si cryptocurrency si maraykanku u noqdo cryptocurrency-ga waddanka ugu hogaamiya sida weynna uga shaqeeya cryptocurrency-ga. haddaynu isla eegno newskan kalena wuxuu ku saabsan yahay Trumpsina sheegay waxaanu sheegayaa in bilka la waqaci doono dhowaan. haddaba shayga cajiibka ah sida cryptada asay wada ognahay Trump wareerka maaragtay suuqyada uu ku sameeyo imika iyo weliba manipulationka uu sameeyo siday dee waadax weeyaan imika heerkan uu marayo waa manipulation uu sameeyo kadibna uu soo baxo uu yidhaahdo wadciga stock marketku waa wanaagsan yahay waana soo laabanayaa dhicitaankan uu dhacayna maaragtay wax saameyn leh maaha. say newskana ku aragno wuxuu sheegay Donald Trump stock market dips are peanuts. dhicitaanka kadib markii reer Yuruubka ay madax galeen ayaan tirweyd wuxuu sheegay maanta inay tahay waxaani amba dhicitaanka suuqa inuu yahay maaragtay mid aan saameyn weyn lahayn oo stock marketkuna double uu samayn doono amba laba jibaar profitka uu samayn doono dhowaan. isla maantana waxaa soo baxay news asaguna taarifyadii uu waday qaaday dowladaha Yurub inuu cancel gareeyay gebigood taas uu sheegayo ina deal ay isla gaadheen wadamada reer galbeedka amba reer Yurubka. markaas waa waadax weeyaan waxaan uu ninkan wadaa waana market manipulation. dabcan cidda ka faa'iidaysan waa wada garanaa waa asxaabtiisa billionaireska ah iyo dadka ku xidhan asaga. haddaynu newsyada kusii socno taarifyada uu ku soo rogay Trump wadamada Yurub waxaynu arkaynaa isla maalintiiba sida waddanka Maraykanka ay khasaareen $1.3 trillion runtiina waa lacag aad iyo aad u fara badan. maantana waxaynu arkaynaa markuu kansar gareeyey qaraarka in $700 milyan ay soo gashay suuqa. kadaalika xitaa waxaynu arkaynaa in goldka iyo silverka si waalan loo soo daadiyey maadaama iyagu ay yihiin safe haven wax la yidhaahdo oo marka cabsida iyo dhaqaalaha wax iska bedelaan adduunka wax iska bedelaanba lacagaha ay gashadaan dadku. marka runtii isaan sheegay manipulation inaba caadi ahayn ba suuqyada ka dhacaya. mar walba khayrta ogaada mar walba Trump uu wax ku hadlo waxaad ogaataan in muddo ka bacdi uu soo bixi doono uu cancel gareyn doono waxa uu ku dhawaaqay. weliba markaad aragtaan in uu leeyahay dhicitaanka stock marketku waa wax yar wax laga warwara maaha waxaad ogaataan in uu soo socdo qaraar ku saabsan in la cancel gareeyo waxa uu ku dhawaaqay hore sabab u ahaa in suuqyada la soo daadiyo. xitaa bitcoin waxaanu arki karnaa in laga soo daadiyey ilaa iyo $95,000 oo ilaa $87,000 loo soo daadiyey.